Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabey, iyaantaan waa naga maqnaa, iga raali noqda. Qisadan ayaan rabnaa maanta noo sheekeeyo. Anigu magacaygu waa Saalim. Waxaa 28 sano hadda markaan aan noo sheekeyn. Laakiin markay igu dhacso waxaan jiray 21 sano. Anigu waxaan ahaa wiil faqiir ah oo nolol faqiirnimo ku soo koray. Laakiin maalmaha kamid ah waxaa arkay muuqaal qurux badan. Markaan is iraahday alla aad ayuu qurux badan tahay, laakiin waxaa ogaaday inaana gadan karin. Waan ka soo tagay markii dambe. Waxaa arkay dad meelaha ka soo gadanaya cunto. Waxaas iraahday ora meeshaas soo fiiyay. Markii dambe supermarket-kii ayaan soo dhexgalay. Meelaha ayaan iska fiirinay, buug ayaan isku qoray. Mar dambe anoo meelaha iska fiirinaya waxay arkay ninka supermarket-ka iska lahaa. Intuu i imaado ayuu i dhahay shaqo ma rabtaa. Markaas ayaan farxay, waxaan idhaahday haa aad ayaa shaqo u raba. Markaasuu yiraahday isla galabta ayaan shaqada imow. Markii dambe markaan ninka u shaqeeyay 2 bilood ayaan sida lacagta ugu soo qaato ofiska ugu tagay. Markii dambe waa soo baxay, waxaan imaaday ofiskiisa. Markaan ofiskiisa imaaday baabka ayaan ku garaacay. Markaasuu soo gal. Markaan ofiskii soo galay waxaan ku dhahay lacagta bisha isii. Markaasuu dhahay tigidhkaaga hoo magaaladaas aad ayuu dhahay. Waxaan ku yiraahday magaaladaas markaa maxaa sameeya. Markaasuu dhahay adiga magaaladaas aad raaxayso, jawi degan ku soo raaxayso. Saaxiibka ayaa xaggaas kaaga horeeya. Anigu waxaan tiraahdo safarka xaggaas muxuu kugu dirayaa. Markii dambe waan ziyaaradda ayaan soo raacay oo waxaa imaaday magaaladii. Markaa magaalada imaaday waa la isoo wacay. Markii la isoo wacay ayaa waxaa la yiraahday saaxiib waa wiilkii. Markaas ayaan ku yiraahday adiga miyaa. Markaasuu yiraahday haa waa anigii. I imow meeshaas iyo meeshaas igu imow. Markii dambe haye waayaha ayaan ku yiraahday meeshaas ayaa kugu imaanaya. Markii dambe marka aan meesha soo imaaday waan iska raaxaysanayay. Anoo iska raaxaysanaya oo meelaha jawi macaan iska qaadanaya ayaan waxaan dhahay adalka waran ninka hadda maanta u tagi lahayn oo waxaan ku mususin lahayn ka waran. Markii dambe wiilkii ayaan imaaday. Markaasuu igu yiraahday haa soo dhawow adiga miyaa. Waxaan ku yiraahday haa waa aniga. Markii dambe wuxuu dhahay soo bax ninkan waa baxnaa. Meesha waxaan ku arkay 2 nin oo meelaha fiirinaya. Aniga weli ma sii fiirsan ee waan ka soo tagay. Danteeda ayaa ku mashquulay. Saaxiibkay meelahaas ayuu iga geeyay. Meelaha muusigada lagu tumo iyo meelaha suuraanta. Meelo badan ayuu geeyay. Markii dambe markuu i imaado ayaan waxaan dhahay saaxiib noloshan adiga ma ku qanacsan tahay, ma ku faraxsan tahay. Markaasuu yiraahday dabcan maxaa diidaya nolol aad u fiican weeye. Adiga maxaa ku diiday. Markaas ayaan waxaan ku yiraahday aniga noloshan oo kale kama helo. Markaasuu yiraahday ha ka baqan, ha ismurugsiin. Waxaan waa noloshaadii ku baashaal kuna raaxayso. Markii dambe ayaan waxaan ku yiraahday bari ayaa saaxiib ka tagi doonaa. Markii dambe waxaan imaaday hotelkii. Markaan imaaday waa is diyaarinayay. Boorsooyinkayga ayaa xiranay. Saaxiibayaal safarkay ugu xumaa meeshaan ayuu ka bilowday. Markii aan saaxiibkay ka tagay aan soo macsalaameeyay aan waqti isla soo qaadanay. Waxaan imaaday airport-kii laakiin safarkaygu xumaa meeshaan ayuu ka bilowday. Markaan arkay gabar la baarayo meeshaas ayaa lahayd waa laga baxayaa. Markii aan meesha imaaday eeyooyin ayaa joogay. Markii aan meesha imaaday eeyooyinkii baa qeyliyay. Markaa anigu waan naxay waxaan idhaahday eeyga muxuu la qeyliyay. Markii dambe askariga ayaa wuxuu u qabtay bastooladiisa. Anigu waan naxay. Wuxuu yiraahday darooga ayaa wadaasdi. Anigu waxaan ku yiraahday darooga dhammaado ee boorsadeeda baar. Markii dambe boorsadeeda wuxuu ka soo saaray daroogo. Anigu waxaan ku yiraahday daroogada malihi. Asaga wuxuu igu dhahay adiga darooga ayaa wadaa xagee ka keentay daroogooyinka aad u badan. Waxaan ku yiraahday aniga ma ahi waa la i khiyaanay. Aniga markaa wixii ka dambeeyay ninka wuu i khiyaanay oo weliba anigoo dhan ayuu i khiyaanay. Waxaa garan waayay wuxuu i khiyaanay muxuu ka wada inuu i khiyaano. Laakiin hadda xabsiga ayaa la geeyay. Xabsiga markii la geeyay dadkii meesha joogay ayaa waxay dhaheen saaxiib adiga maxaa la kugu soo xiray. Markaas ayaan inta u soo istaagay wuxuu igu dhahay noo sheekay qisadaada ayaa fiirinayna wixii la kugu soo xiray. Markaas ayaan ku yiraahday darooga ayaa lagu soo xiray. Markaasuu yiraahday daroogada ma isticmaalayay. Anoo jawaab aan siinin ayaan ka soo tagay.
waayo waxaa ogaanayaan daroogo aan isticmaalin aniga waxaa ii imaaday qof aan garaneyn. Qofka ayaa markuu ii imaaday ayaa wuxuu dhahay saaxiib waxma ayaan kuu sheegayaa adiga xabsiga waa la kaa saari doonaa insha Allah mar dhow. Anigu waxaa ahay ninka maxay xabsiga kaa saari doona ayaan ahay ayuu i dhahay. Aniga markii dambe waxaan u qoray waraaqada askari wuxuu dhahay kaala soo bax kaalay. Markii dambe aniga waan kasoo tagay. Markii dambe mobilka ayaa aanbahay wacday. Markaan aanbahay wacday aabay wuxuu dhahay aabe xabsiga mar dhow ayaa la kaa saari doonaa. Waxaan ku yiraahday aabe waa ogahay aabe kaale xabsi iga saar. Wuxuu dhahay aabe ha warwanin ha ooyin xabsiga waa la kaa saari doonaa maalin dhow ayaa la kaa saari doonaa. Waxaan ku yiraahday haye waa yahay aabe waa maasan tahay laakiin maalintii xabsiga laga soo saariyo waa inaa adiga ii timaadid. Aabahay markaas aan ku dhahay wuxuu i dhahay haye waa yahay laakiin aniga maalintii dambe waxaa lagu yeeray nin askari ah suu xabsiga iga saaro. Nasiib xumo aabahay wuxuu inaan daroogo isticmaalin. Aabahay wuxuu u mooday inaan aniga daroogo isticmaalay. Qaadiga markaa maantana la hadalnay oo ka dhaadhacsiinay. Markii dambe ayuu dhahay haye waa fasaxnay. Eedaday mii rabin in aniga fasaxdo. Aabahayna xawaa wuu murugsanaa. Qaadigii markii dambe wuxuu dhahay haa waa ku fasaxnay shuruud ayaan kugu xirayaa. Markii dambe anigu waxaa sugay shuruudda waxay ahayd laakiin wuxuu dhahay markaa kuu baahano waa inaan noo timaado si degdeg ah. Markii dambe waan farxay. Markii dambe markii la soo fasaxay guriga aan imaaday aabahay ayaa ii imaaday wuxuu yiraahday wiilkayga runta ii sheeg daroogo miyaa isticmaashay moogid miyaa daroogan inay tahay midna naftaada halis gelin karta. Waxaan ku dhahay aabe aniga miihi aabe qisada ayaan kaaga sheekeynayaa. Aabahay markaa wixii dhan uga soo sheekeeyay ayaa waxaan ku yiraahday aabe ma fahantay aniga meeheen boosada ayay ii geliyeen markaa diyaarada ka soo baxayay. Aabahay wuxuu dhahay waa ku fahmay aabe marka hore ninka inaan soo bahalkeena weeye aan soo xirno xabsiga geyno. Aabahay hadduu saacadan xabsiga soo saari lahayn 7 sano ayaan xabsiga ku laqan lahaa. Asxaabay aniga haddii nagu dhici lahayd maxaa samayn lahayd kolba aniga way igu dhacday oo rafaadka waa soo maray. Asxaabay sheekadan iyo bidda dambe mac salaama.